وعنا أو ونكسن إذا لهانتين بعد داوضة يالا كوسو دوادا برنامجدي كلا دوانا إلايسا تي في oo caawo kale aan hawada idin soo marin jiray barnaamijyada Ilays TV caawisnimadan caawa ah aan idin haynana waxa kamid ah munaasabada ballaaran oo lagu xuseeyay aasaaska jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo lagu qabtay xiriyaha qaxootiga ee Dadaab waxa kale oo aad daawan doontaan hadii Rabbi qadaro inta barnaamijkan aynu ku guda jirno barnaamij gaar ah oo aanu idin ka diyaarinay shirka jabhadaha EPRDF indhawaalaba uga socday magaalada Maqale iyo waliba deegaamo kale tanse ku soo dhawaada warkii caalamka iyo saaxiibkay askari Cabdullaahi mahadsanid galad xasan daawadayaal qodobada caawa warkeena ugu doorka roona waxaa kamid ah dagaaladii u dhexeeyay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo kuwa gumaysatada Itoobiya oo halkoodii ka sii socda gobol fadlada ciidamada gumaysiga Itoobiya shacabka ogaadeenaya u geysanayaan oo maalmahan dambe kor u kacay iyo kooxda TPLF qoomiyadda Tigreega oo xadhiga loo jaray qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa ku daawan doontaan warkeena fiidnimo haatan u diyaar garooba warkii oo fidsan wararka naga soo gaadhaya xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa soo tabinaya inay halkoodii ka sii socdaan dagaalada u dhexeeya ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo maxaysatada gumaysatada Itoobiya ee ku sugan wadanka ogaadeenaya dagaaladaasi ayaa waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagaga dilay saraakiil sarsare wararka naga soo gaadhaya wadanka ogaadeenaya gaar ahaan xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa ka warbixisay laba dagaal oo ka dhacay gobolka Qorraxay iyo Jarar ciidamada gumaysiga Itoobiyana lagu awood sheegtay dagaaladan ayaa lagu laayay saraakiil sarsare oo kamid ah ciidamada gumaysiga Itoobiya ee ka howlgala labadaasi gobol 18 bishan 2015 dig oo degmada Awaare ee gobolka Jarar ka tirsan weeraray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya ku qaadeen askarta gumaysiga Itoobiya ee halkaasi ku sugnayd waxa qudhan lagaga jaray afar askari halka 6 kalena lagaga dhaawacay 26 bishan 2015 madax maroodi oo degmada Qabri Dahare ee xarunta gobolka Qorraxay ka tirsan dagaal ku dhaxmaray ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo ciidamada doolka ku jooga ogaadeenaya kana soo orday buuraleyda nabad guurta ee Abaasiiniya ayaa waxa lagaga dilay halkaasi 3 askari oo ku jireen saraakiil halka 3 kalena lagaga dhaawacay dagaalada u dhexeeya ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya iyo kuwa gumaysatada Itoobiya ee ku sugan ciidda ogaadeenaya ayaa si joogto uga dhaca deegaano badan oo kamid ah wadanka ogaadeenaya waxaana dagaaladaasi inta badan ciidamada gumaysiga Itoobiya ka soo gaadhay khasaare ballaaran oo isugu jira naf iyo maal intaba iyada oo marka ka dambaysa dhibaatada ciidamada gumaysiga Itoobiya u geysanayaan shacabka ogaadeenaya sii kordhayso ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay askarta gumaysiga Itoobiya dad rayida ku laayeen gobolada Qorraxay iyo Jarar wararka naga soo gaadhaya wadanka ogaadeenaya ayaa sheegaya xasuuqay ciidamada gumaysiga Itoobiya ka geysteen meelo kala duwan oo kamid ah wadanka ogaadeenaya xasuuqa noocan oo kale ayaa waxa uu dhacaa inta badan marka askarta gumaysiga Itoobiya lagaga adkaado goobaha isku haleelaan naftood hurayaasha xoreynta ogaadeenaya war uu soo tabiyay wariyaha oona uga soo warama xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Jawxo ayaa sheegaya in shacab rayida lagu xasuuqay meelo kala duwan oo kamid ah ogaadeenaya taariikhdu markii ahayd 22 bishan 2015 gar loo gubay oo degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo ka tirsan
waxay ciidamada gumaysiga Ethiopia si naxariis darraha ugu dileen Allah u naxariistay marxuum lagu magacaabi jiray Abdi Fatah Ahmed Wali 26 bishan 2015 Kudumbuur oo degmada Qabri Dahar ee xarunta gobolka Qorraxay ka tirsan waxay ciidamada naflacaariga gumaysatada Ethiopia ku dileen laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray ina Maxamed Cabdi Jikre iyo Hudla Dirir sidoo kale 26 bishan 2015 degmada Jigjiga ee xarunta gobolka Faafan waxay ciidamada bahaloobay ee gumaysatada Ethiopia ku dileen Allah u naxariistay gabadh lagu magacaabi jiray Ogbaad Xasan xasuuqay ciidamada gumaysiga Ethiopia ka wadaan wadanka Ogaadeniya ayaa si joogto ah uga dhaca meelo kala duwan oo kamid ah wadanka Ogaadeniya dhaga kale wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa xarunta gumaysatada Ethiopia ayaa lagu soo waramaya in 26 bishan 2015 lagu dilay Addis Ababa wiil lagu magacaabi jiray Ilka Case Maxamuud oo kamid ahaan jiray dirawallada wakiilka gumaysiga Ethiopia ee wadanka Ogaadeniya dilka gacan yarahan Cabdi Ilay lagu fuliyay ayaa lagu soo waramayaa inay ka dambeeyeen koox kamid ah gruubka Cabdi Ilay ka baxsatay ee xarunta ka dhigatay magaalada Addis Ababa una adeegsadeen gaangiska magaaladaasi Addis Ababa ma jirto xog rasmi ah oo xaqiijinaysa in kooxdaasi ay ka dambeysay dilkaasi balse waxaa la xaqiijinayaa in wiilkaasi 26 bishan lagu dilay magaalada Addis Ababa magaalada Ontario ee carigaasi Canada waxaa lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay sanad guuradii ka soo wareegtay asaaska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya jaaliyada Soomaalida Ogaadeniya ee gobolka Ontario Canada ayaa waxay qabatay xuskii sanad guuradii asaaska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo haatan laga joogo 31 sano xuskaasi oo ahaa mid si diiran loo soo agaasimay ayaa waxa uu ku dhamaaday guul waxaana halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan oo lagu sharaxayay shacabka ka soo qayb galay xafladaasi sidii loo horumarin lahaa halganka Ogaadeniya iyo walibana marxaladihii uu soo maray ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadeniya faraciisa ifo ayaa doortay xogeeye cusub kaasi oo bedelay xogayihii hore ku beegnayd 30 bishan 2015 waxaa xerada qaxootiga ifo deegaankaasi Dhadhaab lagu qabtay xaflad ballaaran ah oo lagu dooranayo maamul cusub oo yeesha ururka OYSU faraciisa ifo xafladaasi oo si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay waxaa lagu soo sharaxay laba mudane waxaana markii ugu dambeysay lagu doortay mudane Cabdullaahi Bashiir inuu noqdo xogayaha OYSU xeradaasi ifo magaalada Maqale caasimada gobolka Tigreeg waxaa 4 maalmood ee la soo dhaafay ka socday shir aad u xamaasad badnaa isku haysatay kooxda EPRDF ee wadankaasi Ethiopia 24 sano ee la soo dhaafay xooga ku haysatay xafladaasi ayaa ugu dambeyntii kooxda Tigreeg xariga loogu jaray kadib markii ay waayeen labada xubnood ee ugu sareeya EPRDF oo kala noqday Hayla Maryan Dasalen iyo Damaqe Mokana oo iyagu kala noqon doona ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ethiopia iyo ku xigeenkiisa wararka ku saabsan arrimahaasi oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan barnaamijteena soo socda intaasna waxay nagu ekaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay fiidnimadan caawa waxa idin la socodsiinayay anigoo askari Cabdullaahi warka xigeentan ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah aad iyo aad buu u mahadsan yahay askari Cabdullaahi iyo warkii caalamka intaasi haddii aynu ku dhaafno bal hadda kaalimaha suugaanta aynu milicsano Yeah.
واتهاي داوديال ولي برنامجكني ayaynu dhexda kaga jiraa xilli lagu guda jiro dabaaldega aasaaska jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa waxaa meelo badan ka socda xuska loo sameynayo 31 guurada ka soo wareegtay aasaaskii jawxo oo dhidibada loo dhigay sanadii 1984 munaasabadaha dunida dacaladeeda ka dhacaya ayay shacabka Soomaalida ogaadeenaya ku muujinayaan dareenkooda la xiriira sida ay ugu faraxsan yihiin aasaaskii jawxo oo iyadu ah tan baadi goobka ugu jirta shacabka Soomaalida ogaadeenaya sidii uu xorriyadiisa ku heli lahaa mar kalena uu uga mid noqon lahaa dawladaha caalamka haddaba xirada ifo ee kamidka ah xiriyaha qaxootiga ee deegaanka Dadaab ayaa waxa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada reer ogaadeenaya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta jawxo ee halkaasi ku sugan waxa iyaguna munaasabadaasi qayb ka ahaa abwaaniinta iyo kooxaha fanka reer ogaadeenaya ee ku sugan xiriyaha qaxootiga Dadaab abwaan Axmed Sheekh Cali Heelaale oo ah abwaan caan ah qiimo weyn ku dhaxlay bulshada Soomaalida ogaadeenaya kaalin weyn ka soo qaatay halganka ay jawxo ugu jirto gobonimo gaarsiinta shacabka Soomaalida ogaadeenaya ayaa halkaasi waxa uu ka jeediyay khudbad iyo waliba gabay aad u qiimo badan oo uu kaga hadlayo qadiyada ogaadeenaya marxaladihii kala duwan ee ay soo martay iyo waliba meesha maanta ay joogto hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa khudbada iyo waliba gabayga qiimaha badan ee abwaan Axmed Sheekh Cali Heelaale ee ka bogasho wacan قول حسم يا إلهي ياسين إلهي أمد الصومالية السعودية شرف كي كرامة مدى هذه كرامة هذه الله السعودية إلهي ولا إلهي دعاد لها أمين حتى نولان نولان نولاننا إلهي هو السعودي إلهي هو السعودي شعب الصومالية أنا والله ليه ويلك أنتوا كل شيء تسمعين يوم مثلا لنا جمامي يوم مركي يوم بمباس كل أنت يبلد دير ده بكر كلام هي ليه سي لما حقير كرو لكن قريب يروق عدة وطن كا كيساجينا خاينتي شعب كي الصوماليين خاينتي أنا جانا خايمة وإن شاء الله كلا صار ها إلهي نسل الدقدقة حسيو أنا جانا نسل الدقدقة إلهي نسيو وإحنا مسلمين البمب إلهي نسل الدقدقة حسيو وما لها شكو إلهي كلا حجاب أهي ننكي قادة شادي الديدة ورقولك إلهي ننكي قادة وحي قادة شادي الديدة إنقرين رسولك بوا قش ولا الله إن كستو إسقيب قيب سو قربا ما قعشقتو كلا قادي مين كفروا ويسكو قبيلة كلا قادي مين كفروا ويسكو قبيلة متكي قرض بالله بيوض الميقا كوق البحية haddii qaadida adaa gartaa qaad la dhooho aayar waxay noqon qarshi iyo qaada iyo tuug qaraaba ah mahmaah Soomaaliya waxay dhahdaa qaada iyo qarshi waa isku dambi gurin leeyahay soo gashay hantidiisii baad qaadatay saaxiibka baad u tagtay waad u dhibatay uu qariyay laba tuug baad tihiin way marka Ethiopia Soomaali dhulkeeda haysata ee dadkeedii biqeer xaq ku leynaysa iyo kan lacagti iyo waxay u baahataba ku siin
ولا بدم بيرو يسوق هاي مدوية المعنو دليل أنتوا بنو حلايا بقى أنا قبل وحيوك اللي في هاي الصومالي وددواي وهو فكذي ها متكي قال بالله بيودر ميجا كوو قلب حيا هدي قادي داعدا قرتا قاد لدوه آير وحي نقون قرشيو قادا إيو تو قراباه وإسلا وذا قبايان دنبيغا وانا اللو قريه والله قبيلود وحداقا قول كالدنيا دويه قرني هوري قرونتي قدليو سيقر اوغدو شي قردر راو قريماي عذاقتي دوني دي قبلي قردرو وقردرو إيا قسكت قرين قردرو قلعا ودني إيا قامد قردرو قرين قردرو ننكي إلهي قرنسي وقرن دونا مركا قردرو قريماي عذاقتي دوني دي أذنبا كقودمي أذنبا كقودم أذنبا بقولوا أفكي أو كقودمي أذيقا قرداس باسو قابو قن كاليغاي قيرا دقال كبرياهن قباني ديجيدو هاو قبين قلقولت قابان إيو قيلا مانتاهي قبك الليسكو من دافسن يحي وقدي يدوينه dhiigga ogaadeenaya maanta ka qubanaya qulqulad waa isku dhac yar oo khilaaf ah weeyaan wuxuu qulqulada maanta ceelkii ka dhacday laba qolays yar oo qalwiyo Soomaa iyo wax soo jireen Soomaa kala fogo qiirada dagaalka bariyahan qubani dhiigeedu ha u qabin qulqulad gaaban iyo qayla maanta isku dhac ceel ka bilowday marka waa wax fog weey marka qabka la isku maandhaafsan yahay waa qadiyad weyn namba soo fasirto هذا قبل يصير فسردون قيرة دجال كبرية هنقباني ديجرو هاو قبين قلقولات قاباني يو قيلا منتاهي قبك ليسكم من دافسن يهي وقدي يدويني والقمال الرئيسة جرتيو قنصي ديري راده mid qabaan sidooniyo mid kale oo wax qursanaya labada qorsho kala bedelan oo isqaabanaynin qiil kale tabaalahayn quruhur mooyaane qafal xumaada saasoo aan qabo qaya iyo daa'in oy ilaa qartaagnayd waqay xabashi qaqaawan أنا قادر ما يداف وليكو قولايو وقالد مرجوعا كدالي غير الدير رادا اسكمي من دقال قادر نورشان دي سومالي سيدنا لو يري با وحي حبشي ديغا انغا قوبيسا دولكا انغا نستورنغا كعنو لهنا انغنا ندايا نينكا سوماليغي وينو ساوفا marka دول حبشيات كما سخنو waxa weeye jiinlay waxa kamid aha يعني دبعتها للمريء أنت انكسر هذا اللي متقنا جافا جوكتا بعد الكل اللي يقول شوكتي تلفز كي تلفون كاتير ونبتاعن تقف قارة أيلاد هي ميل شرقي ويا لو إني عن تلعنون ما هالشيء تلير هاي جنت الله يسوي يستوى واتلم الديدي هذا واحد الله يسوي يستوى أنا كل اللي يجوي حمار يقالوا لو إلى وحبوا مضونا ولا الصومالي ويركفتنا موقتها نندلو بيتش دي هايستو غير نود استرا يا وحول لها يا اوغادين يا مانت ما دبا كجرا سيجاره iyaga u maqshinaya hadalka marka maalin walba isku soo celin ugu yaraan 100 ruux oo shacab ku dhimatay ogaadeenaya wallahi inayna ka yarayn kama warqabtaan dadka Soomaaliyeedna waati waa dhibic idin saaran way oo dhaleesheeda waaga soo gudaan mooyi intan idin kama gudi karto anigu koow iyo 10 jir ah toddobaatan toddobadii oo adhi la jooga yaa waxaan duur ku qaadi jiray gobolada wajeer baa gurmad loo diray fiiri garis iyo mandera wallahi koow iyo 10 jir baan markaan ka tiiraanyoonay marka idinkii oo naga aqoon badan oo beetrel hor wada haysta yaa leedihiin maanta ogaadeenaya intaas masaasa ka jirtaa taagantiinba ma ogolin waxna qabatana ma hawlalayaan dhalashahan bayna noo qabanin dhaqan ahaan bayna noo qabanin islaamnimayna noo qabanin وأنا كنا قاعدين ماشي تاجنتي أدبو قدومي هن إذا كان بليه أنا ودليل بانين سجدنا
dhulku waa dhulkiinni dalkuna waa kiinni dadkuna waa kiinni ninna ma dulmayno gurigaanagii baana laga soo saaray ba cabdimadoobe yidhi waxaan colaad u hayna ma jirto ninkaa gurigaanagii naga haysta mooyeen gaal iyo muslimba inaan lagu taageeraan xaq ugu leenahay marka waayahay raalliga u dulqaato anaanta ha maxay ahayd marka waa qalada marjuuca bal u fiirsada hadda marka maxaan isku haynaa waa qalada marjuuca ka dhalay qira deerireede weligeedna wuu soo qoraa qaradankenuye qaabkaa inay tahay wuxuu yahay qoraalkeedu qarqarradaa badweyntoo dhan iyo qarunku sii jeeda qoriga jabuutiyo ilaa qodiyaada waa mawaati waan taaganaan maleenaya soomama dhulkii soomaaliyeed maxaa idin hadhay ku qabso oo qarsiya baali iyo qaybta herar oo dhan marka soo kulligood ma waaya qarqarradaa badweyntoo dhan iyo qarunku sii jeeda qoriga jabuutiyo ilaa qodiyaada waamo ku qabso qarsi iyo baali iyo qaybta heerar oo dhan dhul qariiradan sheegay iyo qaar kaloo badan leh oon qaawanayne dhirtiyo qaraday geediisu qaraabkuna ka buuxoo nimcadu ay qulquulihayso oon qubaasho roob iyo diraac qodku kaa idlaanin oy qani ku tahay beeshuyo aan qaxdiiba oolin soomaaliyo intaa qunu degtoo quruxsan oo taalla oo qabaatintoo baadiyaha qoran ku maalaysaa lodoodii iyo geeloodii adhigood beertooda iska dhaqanhayeen diintoodana way haysanina mayna dulmaynin qanina way ku ahaayeen weeye macnuhu adeer ها وإلا من قارس إلا متقنا من أبخ يتجوري يدير دبا أنت ودحيس وحال قيسة أنكلا دلهين بيه وإسكو إسكو دين إسكو نسب إسكو لا شوي هذا حال نباوة داري سومالي يبقى باكنه والذنوب ترى وحيابها أنا لقيت ريا كمتها ويقاني كتاهي بيشويو أنقحذي بأولين سوماليو انتا قنو دكتو قروحسن او تالا او قباتنتو باديها قرنكم ماليسا قطنكي لوضوضانا لوشيو قابكي آريغوضا قرن قيلا لو هذيك سدا قطنكا إيا قابكا بكا قابكو كالبي أما قرور وحا يدتكني دهانوي أنا هنا قرور كوان عانا هلا ديقا قابلا ده لوذي آريغا يشي قيلو ميشو مركسا ولا سعودا قطنكنا ويلش اللو حرتا أنا مركي قوجسن هيان قاوين وسلوين انت اقودان قد يا مدحودا دغه habeenkii lagu kaasa qoton dhaha marka qotonkii lodoodana lushiyo qaabkii arigooda oo diinta oo qaaliyo baran quraankiina kolba qaab adoo muujino qiiq ismaarinaya gabanka qaafle gardarada gardaru ka hadla gardaradii aan dad ka dhignay marka كل بعضان إسكسر دي كل مدوبة إسكسر دي كسر ها كل بقابضهم بوتشينو قيق اسمارنا يا قرية لهين يودلكو قادرنا وباري قران سدري انت القرد كوسو دوشي قبان كو في اللين ووحي قرطكو سري قبان كو في اللين ووحي قرطكو سري قبصاشيو هذا رباين هذا قادة تابعيدا ودولي بسيقل ركتو قلد دينتو دا قرن كاذا صدونتيو قارسكا تركاقي قلالا سهاقي قري قنسي دابا دادا الله رحمه قلالا سهاقي قري قنسي دابا دادا قلب قاتا قرتو كويري غير ذا إسلامك warqiirootay Soomaalidii qaaliga ahayd dad qaali ah Soomaalidu ilaahay sharafka ay leedahay soo celiyo marka qalab qaato goortu ku yiri dhalinyarada yaray qayrada islaamka qiirootay Soomaalidii qaaliga ahayd qiiro iyo qayro waa kala gaar marka tawgada qayro waa bulsho weey loo adeegsadaa waliba loolay qayraa meesha degan baa la dhahaa qiirana waa ficil weey marka يعني سيكون قلدمي بعدما إذا المعلن لهين وأبيه هو يبغى ويدين أنت إذا كسر قارن ويانا نكو عون
الله يدلقات ها أي قلب قاتا قرتو كويري غير ذا إسلامك وقيرو تسومالي دي قاليقا أخيدي أيضو إسقول فارينو قرن اسمو دي سوا أبسيني وحي إسقول فارين هيا قفالي دتي لغو هانتي يوسف وادا قاون قفالة قبلها بحية قبل ما أنت قرن كرتيني هنالك فدي ما نمالينا يا ربو شغل بكم عليه يا قرن قفالة يا شيء كرا من دي حولها لغو قورعا لها من تقفالة نافكا لغو قورعا مرة لغو دوا ماشي لغو عليها لغو مقرو يا هذا قرتي ما كان من دي الراعي سلام عليك قرن ها أيضو إسقول فارين وقرن اسمو ديسا قفالي دتي لغو هانتي يوسف وادا قاون قولكيو يغوركيو مدي قارت الله قار قول جيل لوك حيانا والا دها شحذا مركي لديها حيانا قيب مقع قار لي هذا ساسي ودرتاي وصدح دير وشا دير جيل لوك حيانا لو مقع طري يا لفت تلمين اللبح اسكما دحون هاي قفالي دتي لغو هانتي يوسف وادا قاون قولكيو يغوركيو مدي قارت الله بوبي قيدران تتيلا لا دعي قوض الله قصاري قاركي للايو انتي قرنتي موياني قح انتي استيري بقها قرف كالو تاقي ايغا قردوفها وتيو قنسيغي هوراي سيقصدي انتي راعضت دير لوغا دابقات حتى مركي الصومالي كسو دونتين اللي تبيي إلا الراعدي واجبه فصاص ما أيها قردوفها وذي قنسي هوريسي قستي أنت الراعدي دير لوغا دابقات مر وكو عري المكتي وحلا قالا جركوضو ورمها لو قوة حابة قندوريو هواسيو انتان قبني هادامو وماشي هدا أي لانزليدو بحير هادامو ساولا سعودا قندوريو هواسيو انتان قبني هادامو قادانكي سوهاري انتان قادني فاضل كودي قرفائيو بنانيو قرديو قوية ايو بورو قل لدي قلي سبامدي انكو قابنيني إن قورعو وجيدنا يا قورت الله وقويي قورت الله وقويي إن قورعو وجيدنا دبكو قود مركي لغو كرساني ووح قالي يا إيه هبنتي مركي لغو قتلي قاعة أول الكيسة درارتينا قوري يشدي وقيق الله وراعي قبا سول وقويي انتي قوسطوي سميرتي أيغو قدوديغو ديرو هوغ لقا مردادا قنش ديغ لتي لغو قصبيو هلبا قيرينا قشن كان عنسي ساد أحيد قوغلا أورد لن قدرن قال لي واتي توبي هلب قيرين برتيوي إلا هدوي أيضا برتي هدي بلاي ورسدي ها أيغو قدوديغو ديرو هوغ لقا مردادا قنش ديغ لتي لغو قصبي إيو هلبا قيرينا قشن كان عنسي ساد أحيد قوغلا أورد هداي محارد نيري كل بقاب أضو موجنو قيق سمرنا يا مرك قلفتي مذو بيد مركز قولكو قابا ويدي قرياي أضو مالين كالي قورتا في دينايا أديغو قبكي نو بدلي أو قايتشاوي عذا قبقب إيو هدانا قوردن باد نورتي مدقوكي شاري أفريكان مذو بيد موكسي وانا ليفني إلا يقوندر توتسي إنا نقنين نقرسي ها عيني عرضي عن عينين marka iyadoo xuubkii iska soo bixisay oo cad oo cadaan faranji ah ee timid way marka qoloftii madoobayd markaad guul ku qaaban weyday qoriyaay adoo maalin kale qorta fiidinaya adigoo qubkii noo bedelay oo qajaawicaada qabqab iyo haddaana goor dambaad noola timid qooqe subaxdaana geesh qiimala boobay qaalabkiiye سيد محمد قيردي وداني قرنكو أساسي وغنا قدبي قبيدي قالي أهاي فضا قرئي يبوري قرفيو قويس كاقبودا هانسيه انتي لو قمدي جيني وعدا قوقا دراويش قتال كبار ربطوكو قاماميسا وقامت كيني سيداقات الدابة
qudha kaaga jaare meel kastood qobka dhigateene wuxuu qaradankeenu bato lays qaraacaba faranjigii quwaada weyn isbidayena quursanayay inuu dunida qodheeda yahay mariisuu qaybaalay isticmaalkii qaaruntaan lahayn qalad ku soo aaday marka aan saaleehay afarta geedi ogaadinayo ma jidaade qaarunta aan ku faanayeen difaacayo waa mintan iyo min obokh iyo min dir dhaba weeyaan isticmaalkii qaaruntaan lahaa qalad ku soo aaday halku qoobka saaraba markaan qorta kaaga goynay waa tuuqa saaraha mutiyo qomamiya ciile qayiraada iyo ceebta waayaday qunula ludeene qayaaniyo sir baa lagu yaqaan qonkan reer yurube qudraa kale markaad weydayood nagu qafaalayso qaskaad nagu bilowdaa ahaa midaan qarsoonayn abuu qaskaasi muxuu noqon doonaa soomaaliyo qoysahoo qoodi waada taalla oo intay qabiil tahay isjecel qun iyo laanduuban qoqob iyo intii aad xeriyiyo qaadhu kaala ooday qolo intuu kala madhood qoolisu ugu dhiibtay quwaday lahaayeen intaad qurubtay oo shiiday shan wixii u kala qaaday ee qaybisaa tahay waana dhalinyarada yari saa u ogaadaan hal reer baan hayno hal aabbiyi hooye ka beermay shan wixii u kala qaaday ee qaybisaa tahay qanci maysid qornaba adoon layska kaa qaban qayaanadii adoo sii wato qalad maaleegaya qayirkii daraawiishtu ay jeer ku qaabadsiisay adoo qoonsigeedii qaboo cadho la qiiraysan oo qiilu daydayan mar kale qaankii go'dobtaada qandii madhan waxaystaadahaydoo qarhabsaniye qayrkaana saan uga hadhno qarannaa loo waayo intaad shacabkii qaarafaysigii qaar ka sii gadatay qaryo kale kuwaad ku lug xidhoo daga qabiilkaagu intaa ma fasirayo qaryaa kale kuwaad ku lug xidhoo daga qabiilkaagu si qasabaa masiixiga waxaad ugu qorqabatay quwaddii islaamkaad intaa kala qalaysay qasadkaad lahayd baa ahaa nooc qabyaaladaahe soo saama qayradii midaysnayd intaad aad u kala qaaday qaydqaydna bar qaraabadaadii ahoon ka qudraroonaynba intaad labaada qoobugaa xidhood qoolku kolla waa xadhig maqasha lagu xidho kolla waa burdadka lala dhaco saa u garta hadda qoolkii xadhig ahay waa lagu xidhay jiray wey bar qaraabadaadii ahoon ka qudraroonaynba intaad labaada qoobugaa xidhood qool u soo gelisay qoqobna aad samaysood xuduud qorotay beenbeena qaydqaydna aad ugaa dhigtiyo dhudiyo qayraanba qabso wixii ku yidhi baad ahayd qaar addoonsada afrikada dagaaladan qasee laysku qaalanayo qaxdigiiyo qaxiyo baahidiyo qaxarka naafeeyey qacdaa iyo qadhiyo qawda iyo qabisla maandhaafka qalalaasahaydaa intiyo qulubka haystoo dhan waa qaraaxa miinooyinkaad qarisay jeerkaas waa xuduudadii wey waxa afrika isku dilaya hadda qalad yahay qawaaniin xunood adigu qaatisay waa yurub ood qaladka wada buuxisiyo qodoba xaaraana qumanaanshahaad ugaa dhigtay la qallib maayaane qodxasunaa wixii kaga dhex tegay qaaradaa tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay abwaan axmed sheekh cali heelaale oo ka hadlayay munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegayey xuska sannad guurada 31 ee aasaaskii jowxo ayuu kaasi ahaa waxaanu idin leenahay mar kale soo dhowaada meel kaste oo aad joogtaanba waa tahay daawadayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aanu idinku bedelnay barnaamijkii bandhiga Elise kaasi oo aanu ku soo qaadanayno shirarka ay yeesheen kooxaha ka tirsan amaba ku midaysan magaca EBRDF barnaamijka gaarka ah waxaan ku soo qaadan doonaa haddii rabbi qadaro shirarkii ay kooxaha jabhadaha ah ee kala duwan ee EBRDF ku boobay ay yeesheen dabayaaqada bishii ina dhaaftay ee Agoos kuwaasi oo soo doortay hogaaminta jabhadahaasi iyo hogaanka u qabanaya iyo waliba xubnahooda golaha dhexe iyo sidoo kale gudiyaasha fulinta haddaba dabayaaqada bishii ina dhaaftay ee Agoos ayay jabhadaha ku boobay isbahaysiga EBRDF ee talada dalkaasi Itoobiya xooga ku haysta waxa ay yeesheen shirar kala gaargaar ah oo mid waliba ay gooni u yeelatay jabhadahaasi ayaa waxa ay shirarka ay qabsadeen ku soo doorteen amaba ku soo magacaawdeen shakhsiyaadkii hogaanka u qaban lahaa golahooda dhexe iyo waliba gudiyada fulinta ee jabhadahaasi maamulaya 5 sano ee inagu soo foole kooxda TPLF oo ugu horeysay ahaydna tan ugu miisaanka culus marka la isku daro dhamaanba kooxahaasi ayaa shirkeedu waxa uu bilowday 22 bishii ina dhaaftay ee Agoos
kooxaha kale ee ka midka isbahaysigaasi ayaa maalmo kadib waxa ay qabsadeen shirarkooda kuwaasi oo xitaa aanay dadweynuhu ogeynba qabsoomidda shirarkooda halka jabhadda TPLF-tu uu shirkeedu ahaa mid si weyn indhaha bulshada Itoobiyaanka ahi ay ula socdeen aan ku bilownay ee kooxda uu hogaamiya Xayla Maryan ee loo yaqaano SEBDM oo shir maalin iyo bar socday ku yeelatay magaalada Asoosa ee xarunta shucuubta koonfureed 24 isla bishaasi Agoos ayaa horjoogaha kooxdaasi waxa ay mar kale u xulatay Xayla Maryan Desalegn oo qaab maqaarsaar ah ugu magacaaban ra'iisul wasaaraha maamulka Addis Ababa shirka kooxda SEBDM waxa haykalkii siyaasadda lagaga saaray wasiirkii hore ee beeraha ee maamulka Addis Ababa Addisu Lagase oo muddo dheer ku soo jiray hanaanka siyaasadeed ee ururkaasi kooxda Xayla Maryan ayaa ah kooxda ugu tabarta daran marka la fiiriyo hanaanka siyaasiga ah ee dalkaasi Itoobiya jabhadda TPLF oo ka duulaysa murtida odhanaysa ushaada nimaad ka qaadan karto ayaa loo dhiibtaa ayaana kooxdaasi waxa ay ku ilaashanaysaa kursiga ra'iisul wasaarenimada ee maamulka Addis Ababa ma jiro wax isbedel ah oo kooxdaasi hoggaankeeda ku yimid dhammaan xubnuhuna waa kuwii hore marka laga reebo halka shakhsiga ah ee isagu gabi ahaanba ka baxay hoggaankii ama kamid ahaanshihii qaybta siyaasadda ee jabhadaasi shucuubta koonfureed ay leedahay ee uu hoggaanka u hayo Xayla Maryan Desalegn dhinaca jabhadda axmaarada ee loo yaqaano ANDM ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay qabsatay shirweyne ay ku dooranaysay hoggaanka jabhadaasi iyo waliba golayaasha kala duwan ee kooxdaasi ANDM ay yeelanayso 5 sano ee inagu soo foolle kooxdaasi oo shirkeeda ku qabsatay magaalada Baxardaar 25 bishii ina dhaaftay ee Agoos ayaana wax isbedel ah ku sameeyeen hoggaankeeda waxaana madaxda kooxdaasi mar kale loo calmaday Dhamaqe Mukunin iyo ku-xigeenkiisii hore waxaana xaalku uu u muuqdaa in uu yahay oo kaliya joog meeshada joog kooxdani ANDM ayaa ah tan labaad ee ugu saameynta badan maamulka Addis Ababa marka laga yimaado kooxda TPLF ee iyadu qoriga caaradiisa ku haysata xukunka maamulka Addis Ababa markastana siyaasiyiinta jabhadda Tigreegu waxa ay la socdaan oo si feejigan ay ilgaara ugu dhowrayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee horjoogayaasha jabhadda ANDM ee qoomiyadda axmaarada kooxda oromada ee loo yaqaan OBDO oo ah tan ugu kurasta badan baarlamaanka Itoobiya ahna tan ugu tayada daran dhinaca siyaasadda iyo hoggaaminta ayaa iyana shirkeeda waxa ay ku qabsatay magaalada Adama 25 bishii ina dhaaftay ee Agoos waxaana dib loogu calmaday gudoonkii hore ee kooxdaasi in uu noqdo mar kale hoggaanka OBDO waxaana lagu magacaabaa shakhsigaasi Mukhtaar Khadir waxaana ku-xigeen loo doortay haweeneyda lagu magacaabo Esther Mama oo ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenada magacyaalka ah ee maamulka Addis Ababa kooxdani ayaanay jirin wax isbedel ah oo lagu sameeyay golayaasheeda waxaana mar kale dib loo doortay isla shakhsiyaadkii hoggaanka u soo hayay muddada dheer kooxdaasi OBDO oo iyadu aan wax saameyn ah ku lahayn talada dalkaasi Itoobiya شغلكي خيانة شرف يلن ميسان هذا شيء تلاقى bal aan dib ugu noqono kooxda TPLF oo iyadu muddo 6 maalmood ah shir u fadhiday magaalada Maqale ayaa waxa shirkeedu u noqday mid uu hareeyay khilaaf baaxad weyn oo ka dhex aloosmay hogaamiyayaasha iyo waliba siyaasiyiinta ugu sareysa dhinaca hogaaminta jabhadaasi TPLF shirka kooxdaasi oo socday muddo 6 maalmood ah ayaa hardan adag iyo dood kulul kadib waxa daaqada laga saaray 7 xubnood oo kamid ahaa
dhagarqabayaashii muddada dheer hoggaanka kooxdaasi ka midka ahaa inkaste oo saaridda shakhsiyaadkaasi ayna waxba soo kordhinin oo boosaskoodii ay ku soo dallaceen dhagarqabayaal kale oo sugayey ayaa haddana kooxdaasi waxay noqotay kooxda golayaasheeda ka saartay xubnihii ugu badnaa ee weliba ruug cadaayada ahaa waxaana xubnaha kooxdaasi laga caydhiyey ka mid ahaa Abbay Sahay oo soo ahaa wasiirkii arrimaha federaalka ee ugu muddada dheeraa maamulka Wayaanaha kooxdaasi ayaa mar kale hoggaankeeda u dooratay guddoonkii hore ee Abbay Waldu oo ah madaxa maamulka qoomiyadda Tigreega halka ku-xigeenkiisana laga dhigay Debretsion oo ka mid ah ku-xigeenada Haile Mariam Desalegn ahna shakhsiga ay talada maamulka Addis Ababa ka go'do waxaana shirka kooxdaasi TPLF oo soo dhamaaday habeenimada 27 bishii Agoos xilli saacado kooban ay ka dhimanayeen shirweynaha afarta jabhadood uga furmayay magaalada Maqale 28 bishaasi uu noqday kii ugu qalafsanaa ee ay yeeshaan horjoogayaasha ama siyaasiyiinta jabhadda TPLF oo haatan uu muuqdo wali khilaafkii ka dhex taagnaa شكلنا كوميسيغا شرق الخيا خيانة شرف يلا ميسان حتى شهد لغا كران aynu dib ugu noqono isla magaalada Maqale ee 28 bishii ina dhaaftay ee Agoos ayaa waxa ka furmay magaaladaasi shirweynihii isbahaysiga jabhadaha EPRDF ku midaysan shirkaasi ayaa waxa afarta kooxood uga qayb galay min 250 xubnood halka ay 500 oo ergooyin lagu martiqaaday iyaguna xaadir ahaayeen shirka kooxdaasi ayaa waxa uu ahaa maalinkii ugu horeysay khudbado iyo ciyaaro waxaase maalinkii labaad oo uu ahaa waxa loogu yeedhay qiimeyn uu noqday mid qalafsan oo uu hareeyay muran iyo buuq xad dhaafa kadib markii su'aalo la weydiiyay shir guddoonka oo ahaa Haile Mariam uu ku sheegtay wax uu cuntami waayay inta badan siyaasiyiintii madashaasi fadhiday Haile Mariam oo jeediyay khudbad uu ku sheegay wax qabadkii kooxdaasi ee 5 sano ee la soo dhaafay ayaa ka sheekeeyay guulo iyo barwaaqo uu sheegay in dalkaasi Itoobiya uu gaadhay waxaase arintaasi ka dhashay su'aalo xambaarsan cadho buuq iyo waliba qayladaan gabi ahaan baa shirkii khalkhal gelisay koox u muuqatay in ay abaabuleed ayaa Haile Mariam isugu daray handadaad iyo waliba hadallo qalafsan oo ay shakhsiyadiisa wax kaga sheegeen taasi oo keentay in uu Haile Mariam shirkaasi uga baxo qaab cadho ah isaga oo waliba ay ka muuqato cadho xad dhaaf ah oo uu ka qaaday hadallada qalafsan ee uga yimid siyaasiyiintii madasha fadhiyay kadib saacad iyo badh uu shirku xanibnaa ayuu mar kale dib u furmay isla sidii oo kale waxa ka dhacay shirkaasi buuq iyo sawaxan ay kiciyeen isla kooxdii hore Haile Mariam ayaana mar kale shirka isaga baxay xaaladii shirka ayaana mar kale gashay jahawareer iyo waliba iska daba wareeg waxaase goor dambe la maareeyay halkii sartu ay ka qurunsanayd oo ahayd hadalladii Haile Mariam waxaana shir guddoonkii la wareegay maalintii labaad guddoomiyaha jabhadda TPLF ee martida loo yahay kaasi oo shirka hogaaminayay ilaa iyo dhamaadkiisii weli dhacdooyinkii shirkaasi ayaynu ku guda jiraa ee Dhameqe Mukunin oo ah ku-xigeenka Haile Mariam ayaa waxa shirkaasi uu ka jeediyay hadal si weyn uga cadeysiyay guud ahaan ba ka qayb galayaashii shirkaasi Dhameqe Mukunin ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba EPRDF ay ku fashilantay hoggaankii dalkaasi Itoobiya 5 sano ee la soo dhaafay waxaana uu sheegay in cadaalad darro badan ay hareysay qaybaha kala duwan ee maamulada dalkaasi Itoobiya waxa uu sheegay in shacabka Itoobiya gabi ahaanba uu ku hungoobay himiladii ay ka qabeen amaba u hayeen EPRDF waxaana uu qiray in maamulku noqday mid ay hareeyeen qabyaalad qof jeclaysi
boob caddaan ah musuq maasuq joogto ah oo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda dalkaasi Itoobiya la degay iyo kala dambeynta hanaankii dowliga ahaa oo isna meesha ka baxay sidoo kale waxa uu qiray Dhameqe Mokonnen in awoodda maamul ee dalkaasi aan loo sinayn dad yar oo koobanna ay awoodii gacanta u gashay kuwaasi oo bulshada inteeda kale ka dhigay kuwa xaqiiriin ah oo iska daa in ay talada wax ku yeeshaan shacabkii ka dhigay dhibanayaal ku hoos nool arxan laawayaal aan u turaynin waxa uu Dhameqe hoosta ka xariiqay in ku takrifalka awooddu uu yahay wax banaanka yaala oo la wada og yahay cabashadii bulshaduna ay xad dhaaftay balse ayna jirin cid wax ka qabatay marka la fiiriyo 5 sano ee ugu dambeysay Dhameqe ayaa sheegay in hay-adihii cadaaladda iyo weliba garsoorku ay meesha ka baxeen dadkuna aysan helin cadaalad iyo hufnaan la isku halayn karo taasi oo sida uu sheegay horseeday fashil caalami ah iyo in Itoobiya ay eeda joogto ah kala kulanto hay-ado kala duwan oo caalami ah iyo weliba ururada u dooda xuquuqul insaanka Dhameqe ayaa waxa uu sheegay in iyada oo intaasi oo dhibaato ah iyo in ka badan ba ay jiraan aan lagu faani karin horumar baan gaadhnay iyo wax la mid ah waxana uu soo jeediyay in laga dhabeeyo maamulka suuban iyo dowlad wanaaga lalana xisaabtamo dhammaanba hay-adaha kala heerka ah ee hoos yimaada maamulka Addis Ababa dhawaaqa ka soo yeeray Dhameqe Mokonnen ayaa waxa uu wajigabax ku noqday Haile Mariam Desalegn oo isagu sheegay kuna faanay horumar ballaaran oo maamulkiisu uu gaaray iyo sidoo kale in wax badan laga qabtay dhinaca cadaaladda isaga oo sheegay in cadaaladda Itoobiya ay meel wanaagsan marayso wadankuna uu gaaray horumar dhinacyo badan ah marka la fiiriyo kobaca dhaqaalahana waxa uu Haile Mariam sheegay in uu yahay heerkii ugu sareeyay ee Itoobiya ay ka gaadho dhinaca dhaqaalaha ugu dambeyntiina shirkaasi ayaa waxa galinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd lagu soo xulay shakhsiyaadkii garwadeenka ka noqon lahaa jabhadda EPRDF labada sano iyo barhka inagu soo foole waxaana loo xushay in uu noqdo hoggaanka jabhaddaasi Haile Mariam Desalegn iyada oo ku-xigeenkiisana loo calmaday Dhameqe Mokonnen oo ah hoggaamiyihii hore ama hoggaanka jabhadda ANDM ee qoomiyadda Axmaaradu ay leedahay arrintani ayaa waxa gabi ahaanba ay meesha ka saartay hanka iyo himiladii ay qabeen hogaamiyayaasha qoomiyadda tirada yar ee Tigreega kuwaasi oo isku waday in mar kale ay talada dalkaasi Itoobiya la wareegaan warku waxa uu sheegaya in gabi ahaanba shakhsiyaadkii hanka kala ahaa in ay noqdaan ku-xigeen amaba guddoomiyaha jabhaddaasi ay wajigabax kala kulmeen shirweynahaasi kadib markii ay waayeen wax cod ah loona codeeyay mar kale in uu Haile Mariam noqdo hoggaanka jabhaddaasi arrintani ayaa waxa ay u muuqataa mid wiiqaysa gabi ahaanba awoodii jabhadda TPLF ay ku lahayd hoggaanka guud ee dalkaasi Itoobiya inkasta oo ay iyagu weli gacanta ku hayaan hay-adaha awoodda dhaqaale kuwa ciidanka iyo weliba sirdoonka iyo sidoo kale hay-adaha kale ee muhiimka ah Haile Mariam Desalegn ayaa waxa uu toos u noqon doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya marka ay baarlamaanka dalkaasi isugu yimaadaan kala fadhigooda ugu horeeyo waa sida uu qabo dastuurka dalkaasi Itoobiya ee wadayaal intaasi ayaana ku soo afjaraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanay shirarkii kala duwanaa ee kooxaha kala duwan ee talada dalkaasi Itoobiya haya iyo waliba shirweynihii ugu dambeeyay ee jabhadda EPRDF ee tan iyo barnaamijkan mid lamid ah intaan isugu imaanayno waxaan idin leeyahay fi amaanillah
barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey daawadayaal barnaamijyadii kala duwanaa ee caweysnimadana uu idinku talagalay Ilays TV ee tan iyo mid lamida barnaamijkan intaan isugu imaanayno waa bahda Ilays TV oo isku duuban oo idin leh nabaday iyo nooli kulante